magta magaca iyo muuqa rag uu ka sameeyay hase ahaatee garashada iyo garaadka aabahay kala dheeraysay waxaan qaadan waayay arxan darrada iyo tacadiga ninkaas gabadha Soomaaliyeed uu geysanayo xaguu ku ilaaway tilmaamtii rasuulkeena kaliya inaysan ahayn mid salaada aadanihiisa iyo muslimiintiisa kala dardaarmayo hase ahaatee ay xigtay kolkii salaada laga yimaado ogaanshaha iyo ilaalinta haweenka warragow dumarka ogaada kaas wuxuu hadalladii ugu dambeeyay rasuulkeena intuusan adduunka ka tegin nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يقولهان سمالوين ميل بدون كجوكتان إبوه إحنا كرجين يا عافمات يا عبادة الصبن يا عمل خير كان حنوصا إبوه إحنا قبر يا عافمات تامين وسيو كان وعوي مرقي سنة إبوه مرقي ذاك قادو كان مراد كلنا متخير مراد كسال الله وقياله كان قريودنا جندي وتقولون إذا إبوه هو وقياله كان قريودنا سمري يمان هكسيو لما هوران دل كنيو نبضا يدد كان صوماليا ضدنت هذا قراتنا الله وين ودي سنية هذا بقى sidaad arkaysaan barnaamijka bilowgiisa barnaamijkan maanta ka hadlayo waa tilmaamo gaar ah oo aan ku kala bixinayo cawaanka kan aan aqliga iyo maanka iyo garaadka iyo garashada toona lahayn magac rageed wata maamuuskoodiisa aan lahayn ee gabaratan tobanka haweeneyda ay dilayaan isagu labeebkaasu u dheero dilaya oo gacan qabanaya gabadha tan dhalinyarada tacadiga iyo dhibaatada waxa uu geystay sideen hore u tilmaanaba alwaada beerka been la haween Soomaaliyeed oo ay hayeen waxay isku qabteen waxa ahayd fiidiyo ay iska qaadeen awalba iyagoo saaxiib ah hase ahaatee argoosiga gabadhaas argoosashadaysay ma aysan noqon kaligeed inay argoosato iyo xigaal iyo wixii dad garanayso oo idil ayaa isugu yimi hase ahaatee waa afkaar iyo fikir haween in dumar ay is aruursadaan oo ay is dilaan oo ay wax isugu tagaan waana dhab garanaysaa in wax lagu yiqiin ragguna waxa tilmaantooda ahayd inay markasta haweenka dhexdhexaad ka noqdaan tan kula dhalatay iyo tan kale toba waa mid aan dhib garanaysaa iyaduna dhib la'aan kula dhalatay labadu waxay ka mudan yihiin inaad dowrato oo alwaada beerka been si walba xataa tan kale u khaldantahay aad tiraadanaade shaydaanka iska naar oo nabiga ku salli orado iska tag oo dhibta iska daa waliba halkaas oo kale markii ay taagan tahay oo ay gabadha Soomaaliyeed gurigoodii joogto oo hooyadiis joogto ama aan iraahdo mid kamid ah inuu u dhaxo dumaashigeedu yahay ama aan iraahdo mid abti waa wuxuu doonaa waxba la rabay inuu kuwa kan ehliya qaraabada iyo qoyska u xiga oo yiraahdo war dib u noqdo iyaga laayo oo dharbaaxo dhaho gabadha ka fadhiista hase ahaatee garasho laawahaas uu qaadan waayay garaadkiisu inuu inta garto marka arrinkaas waxaanu faaleynaa fanaanad kale oo la yiraahdo Rasmi Rays oo iyadana la tilmaamayo codkeeda in meesha laga maqliyay qaarna ay lahaayeen iyada ayay hase ahaatee intaan barnaamijka guda gelin gacantu idama go'de kuwana cusub waxaan leeyahay subscribe sii dhaho bulshadina la sii wadaago share sii dhaha intii joogtayna barakoob baan leeyahay haddaba barnaamijkeena aanu sii guda galno bulshada Kenya ku dhaqan ee joogta ee rag leh ee odayaal leh ee culamo leh ee haween leh gabadha yarta sidaan ogsoonahay waa la dabiibay oo dhakhtar baa la geeyay xaaladeeduna waxa la sheegayaa iyadoo xumad iyo xanuun dareemaysa inay sidii hore dhaanto ay nooshay gurma Soomaaliyeed oo nooc walba ay heshay eebahan waxaan ka baryaynaa mid kale oo ka ballaaran ay hesho waxa weeye waxaan codsanayaa dadka tacadiga u geystay midba xukun gaar ah yeesho hase ahaatee kaanina waragii meeyahde war kan nin lama oran karo waa korankii xiniyuhu tunaayeen weeyba bila aqligu war ninkaas uu qabasho u baahan yahay iyo waliba qabasho kaliya in la qaraaco u baahan yahay haween shanay alla garaad iyo maan xuma alla garashadiisu liidatay gabadhiibu intuu sida u soo qabtay gabigeedii dhinaca kale u rogay baan ku yiri sidii foostadii awalba iyadoo dilnay tan gabadha way ka adkaatay marka horeba culeyskeedii iyo boodhigeedii waa ka korka ka saaran oo iska dhicisay hase ahaatee haween kale haday ugu tagaan oo laga caroodo cilmi qabneen ee wax lama filaan iyo wax la qaadan waayay ugu noqotay oo wallahi aan ka seexan waayay kanina shakina inagama jirin ninka awalba inuu dhawaqiisiyo codkiisa aynu maqlaynay oo ninku ka ag hadlayay nin lama oran kareen nin la moodka marka waxa weeye ninkaas wuxuu u baahan yahay gabadha ehel kaliya uma aha inta walaal iyo xigaal u xigay nin kasta oo Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed waa u walaal waa u hooyo waa u sodo mas'uul maxaa waayahay dhulka hooyo loo yiraahdo maxay naga ka yeersiyo kolka aanu tilmaansanayna hay'ad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waa mas'uuliyad in ka wada saaran haweenka nin kasta oo Soomaaliyeed ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay gabar Soomaaliyeed
كودي ورقة الصوماليات وحي كو جبتانو كو كلا جوانو بقول إن لو كلا ويا قف إياه قضب لقى جلا جبر صوماليات واللي جو مبايا اللي جو دلوبايا واحد دمير كو قاتم معه نبى هذا كهرباء يقول ياسينو نبى هذا بعد قدم قطعها ويك نبت هذا مركز أنا وعم كوري دم بكو جرت حتى هذا قلت هذا قنا دمير لهاي إلا ولا شاب أنا ضم قنايا هذا ولا شاب أنا ضم قنايا مركز جبر صوماليات نبت كإلالية واحد نبت كإلالية ولا شيء هو يضي gabadhayda xaaskayga intii aan jeclahay oo lama horaan ii ah oo noloshayda muhiimka ah ayaan ilaashanaya hase ahaatee adigu doqon oo walaashaay guriga ku joogto hooyadaay guriga ku joogto de ayaadan daryeel iyo damiirtoona u hayn baan ku yiri taas aad kalifaysa inaadan kala jeclaan anu markaan gabar Soomaaliyeed dibka ilaaliyay xigaalkay baan dibtii ka dhowray baan ku yiri gabdhuhuna waa masaakiin nin kasta oo damiir leh iyo nin kasta oo wax kala ogina gabadha dhibteedu way dhibtaa ninka doqonka maaragtay doqonka ayaa gabadha ka adag ninka ragga gabadhu way ka adagtay Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah ka raali noqday oo de shaydaanku ka carari jiray oo alwaada beerka beerle aha ma garanaysaa asxaabtii nabiga kolka la tilmaamayo kuwa uu geesisan oo qaarkiis waxa weeye hadaladiisa quraan uu soo degay in xijaabku ma garanaysaa hablaha loo soo dejiyay asturaan iyo hadal uu yiri ba ma garanaysaa bahay aqbalay khamriga la mamnuuca iyo ninka ayaa maalin waxa albaabka soo qarqaraacaynin soo gurigiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa la caweynay kolkaas ay baa wuxuu qadaray xaaskiisa wax war maxaan ka soo agfirisiye kaco ordo alaabta iyo ma garanaysaa anoo hoos fadhiin caruurta ninka albaabka ka fur hadalkii uu dhayalsaday uu sii fadhiyay mar hadii uu sii fadhiyay mar labaad bay ku celisay war say wax ka yidin miyaan kula hadlin ordo naga horka yaamadi soo qaatay albaabkii uu furay dadku ninkii albaabku ku soo qaraacay wuxuu arkay sii socda kolku ninkii sii socda arkay ayuu wuxuu ku yiri warkaale maxaa danood lahayd buu markaas uu amiirkii muuminiinta dantan lahaa waan la qeeyo ma doonayno inaan ka hadlo waxaas wax dhacay ma habiir gurigeygii baa timi oo soo kicisay dantan lahaana ku sheegi maayo qaadan ma yee dan ka hadal buu yiri wuxuu yiri amiirkii muuminiinta waxa ay dhibtay buu yiri xaaskayga madaxa iga gashay hadal wanaagsan ima tiraahdo dulqaad kama hayo marka iyadan kaaga dacwoon lahaa hase ahaatee markaan arkay adigii oo lagu canaananayo war amiirku isaga u baahan wax u gargaaraan isri kolkaas uu amiirkii muuminiinta Umar bin Khattab Allah ka raali noqday wuxuu yiri soo fadhiiso si degan buu la hadlay wuxuu ku yiri ilmihii iyada ku dhasho 9 bilood uurka kuugu sida shahwaadkaagii baad ula tagaysaa iyadoo daalan oo dharkaagii iyo cunadaadii maanta dhan ka fikiraysi waaw walla caado iyo xayd bay leedahay mashaakil adduun uma yara weyn marka ma inta yar ay ku canaananayso baad u dul qaadan weydayo waliba hadii aad haye xaaji ay tiraahdo ay culayskii iyo wixii haye idil ay ku ilaawayso waa maybe hadaba hadaadan qaban karin inta ay qabatay ugu dul qaaday inta yar buu damiirkaaguna ha qaato qaatibi marka ninka garaad kale nin walba uu ahaadaba gabadha macnaheedu iyo maamuuskeedu wixii mudan tahay uu yaqaan hase ahaatee doqon kale kama dhaadhicin karo waxaan kale idin tilmaamaya nin kasta oo haween ficil xun ka doona ceeb la doona dil la doona markay rag is arkaan rag nin ma madaxu hoos u dhigtaa wiilwaalkii geesiga ahaa ee Soomaali tilmaami jirtay ragga markuu dhex joogo kaadigu ka lisi jiray kaadi haweenaydiisa maalmaha kamid waxa la yiri isagoo aqalka hurdo ay rag sugayaan ayaa raggiyo sugaya aragtay qof ku dhaco hurdadii ka kiciya la waayay kolkaas waxay waryaare maxaad meesha la fadhidaano hawshiina maxay tahay markaas waxa ku yiraahdo waxaan sugaynaa ninkaaga intuu hurdada ka soo kacayo oo ma intiina soo nin ma soo kiciya la waayay ha aqalka uu gasho lugtii bay soo jiintay oo tii war naga soo baxrag baa ku sugayay isagoo aanan jiiq u oran ayuu soo dhaqaaqay wuxuu yimi alwada beerka beelle ragii shirtii iyo alwada beerka beelle arrinka meesha loo yimi ayuu dhameeyay hadhow baa ragii mid kamid wuxuu ku yiri wiil hoog baad ahayd raggaaba ka carari jiray waa maxay haweenay tan ku bahdilayso lugta ku soo jiidaysa markaas wuxuu yiri ninka ragga ah gabadhu way ka adagtay mid kalena waa la tilmaamayo waxa la yiri wiil geel ka faalo suugeeli buu tilmaamay lo ka faalo baa la yiri lo'dii buu tilmaamay haween ka faalo baa la yiri markaas uu yiri ka samir ama u samir wax raaci baa la yiri markaas uu yiri doqonka weydii isaga faajo u dhuundaloolo waxa weeye soo gurbiyo gure marka waxa weeye ninka Soomaaliyeed ee garaad kale ee garyaqaanka haweenka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin buu yaqaan ragga Soomaaliyeedna 99.9 intooda samaha iyo wanaaga badan oo haweenka xuquuqdooda iyo waxay mudan yihiin og baa badan hase ahaatee kolka ay timaado doqonka dameerka baroona waa la rartaayo waa lagu helaayo haraad baa laga baxaa
wax uu yahay garamayo kaas oo kale oo miiran baa ragga ceebaynayo war raggow ninkaa ha la soo qabto ninkaa xaawalayda ku dhex jira oo gabadhaa dilay ha la soo qabto gabadhaa ha looga aaro taasi waa kow arrin kaleeto oo bulshadu ay tilmaantay baa jirta oo ahayd fanaanad rasmi rays la yidhaahdo oo qaar badan ay soo faalleeyeen oo ay dhaheen way ku jirtaa codkeedaan maqlayn anu horta codkeeda maba aqoonba marmar baan heeseeda meelaha ka maqli jiray hase ahaatee codka ayaan waxaan doonayaa dhowr arrin inaan ka tilmaamo gabadhuna way dhaaratay oo 3 wacad eebbahay bay martay inaysan arrinkaa waxba ka ogeyn marka inta aanan rasmi rays codkeeda iyo tilmaanta aan gelin bal waxaan doonayaa inaad idinku ii kala saartaan ninka kan dhalinyarada aad imika maqli doontaan ama dhegeysan doontaan heestiisa ma aadan galayr baa mise waa cabdi hani sidan adiga ku ahay hadii lay ogaan la afka juuqda gabila ama ka dartiba la wada mayla kanuse ma cabdi hani baa mise waa aadan galayr aday naftu ku golatay adigan dadka ka jalaaday aday naftu ku golatay adigan dadka ka jalaaday nina kan dhalinyarada aad imika codkiisa maqli doontaan oo idin shid doonas oo la yiraahdo ayaan la olol waxaad ku tilmaami lahaydeen inuu yahay nimcaan hilaac mise waxaad oran lahaydeen waa ayaan la olol sida shakal daruureed cirku shubag madow iyo ku shaliday xareedo subax biyaha soo shubay subax biyaha soo shubay kanuse ma jamaal onkod baa mise waa nimcaan hilaac bal idinkuse tilmaantiisa kudu isuga kudiray fariimaha udul maray ujeedada mana soo dabcay sidee haddaba labadaa dhalinyaro ah aan codkooda idiin soo shiday ee aad maqlayseen iyo ninka aan hadda idiin shidi doono oo lagu cod tilmaamo ama inay isu codog yihiin la sheego ee nimcaan hilaac isu cod dhegaysto aragtidiina dhiibta والله aynu tooqiyo damqashada ka simana qalbi ku darsaday ba kalinimo dareeme haddaba dhalinyarada aan idin soo tusay waa kuwo isu kacooda da-ad ahaanna dee wax badan aan kala weynayn rasmi raysna codkeedu waa u ekaan karaa gabar kaleeto oo Soomaaliyeed sida ay kuwa isugu codog yihiin hase ahaatee aniga waxaysan la yaab igula noqoneen iyagu waa dee dhalinyare aniga odayaal baa laygu cod tilmaamaa odayaal cawka oo kale waxaan arkay dad le waad u codag tahay allah u naxariisto oo legend Soomaaliyeed oo dee taariikhdiisa iyo ka hadalkiisa iyo dhawaqiisa maalin iyo maalmaba aan lagu soo koobi karin ilaahay jannada ha geeyo wax badan oo Soomaali magaranaysaa u taariikh gal ka tagay marka wariye la xusayo la xasuusanayo ama suugaanyahanadii ah kuwa ugu horeeya allah u naxariiste waa nin kaleeto oo qoraan weyn baa lagu cod tilmaamay oo la yiraahdo Axmed Faarax Idaaja iska daaniga aabbahay uu dhali karaa wuxuu og yahay iska daa maalmo kuma ogaan karo macnaha wuu legend dhaafay gawdhe hase ahaatee Soomaalida ayaa waxay leedahay hal il qofku markuu hal il leeyahay ana aqoontiisu badnayn de wax mala awaaliya waxaan macna lahayn buu maamuus ka doonaa marka waxaan oran karaa gabadha waa lagu dambaabaya way ka dhaaratay alwaada beerka beelinay waxaas kuma jirin bay tiri gabadhan waan xiriirinayaa bay tiri marka dadka inta camal ka dhiganaya ee ku mashquulaya war dadku way isu soo dhawaaqo kaan karaan way isu muuqaal kaan karaan imise qof aad aragteen oo isu muuqaal eg imise qof aad aragteen oo isu socod eg imise qof aad aragteen oo isu indha eg wax walba way dhici karaan marka yeena meel idinkaga dhigine adeer wax kaleeto iyo meelo kaleeto maamuus iyo aragti iyo fikir la doono ka doon noloshii Soomaalida waxay ku soo koobantay meel yar oo aan macna iyo maamuus laga helinay muujiyaan ama ay tilmaamaan hadaba barnaamijka guntiisa iyo gabagabadiisa waxaanu kaga baxaynaa malaha waxa la yiraahdo ma fiicna gabadha Soomaaliyeed ee la tuhmayo hadii wixii ay ku cadaadaan dee wadankii waa la wada joogaayo cadeen loo helo ama ay gabadhii meesha magaranaysa dhaawac loo geystay ay qirto hadii kaleetana daadeer malahu ma fiicna gabadha daay oo dhibta ka daay ninkaan hal soo qabto war nin la moodka hal soo qabto nin ma hakaas tolaayo ilaahu meesha caawimaan joogo
sagaal xaawal ayuu ku dhex jiraa markaasuu mid iska lulayaa maskiinada awalba sagaal ku degayn dufku baxoo damiirka be marka waxa weeye barnaamij kaleeto oo kan oo kale intaynu dib ugu kulmayno warsan iyo war khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi